Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran channelka. Sidaad wada ogtihiin waxaan ku guda jirnaa bishii ugu khayrka badneed ee bilaha Islaamka. Sida awgeed anigana maanta waxaan idin soo talgalay cashar gaawan ku saabsan bisha ugu khayrka badneed ee bisha Arafa. Casharkeenan wuxuu ku saabsan yahay wada sheekaysi u dhaxeeya A iyo B. Conversation wada sheekaysi. ayaa bilaabay wuxuu leeyahay how is your health? Waa sidee caafimaadkaaga? B wuxuu leeyahay I'm rather fine, waan fiicanahay. A wuxuu leeyahay why are you here? Halkan maxaad u joogtaa? B wuxuu leeyahay I'm here for my interest, halkan waxaan u joogaa danteyda. A wuxuu leeyahay when is waa goormee the day maalinta of Arafa ee Arafa? B wuxuu leeyahay it is the 9th waa sagaalaadka of Dhul-Hajja ee Dhul-Hajj. A wuxuu leeyahay what advantage maxaan faa'iido shall I get ayaan heli doonaa if I fast haddii aan soomo on the day maalinta of Arafa ee Arafa? B wuxuu leeyahay you will get waxaad heli doontaa forgiveness afis for 2 years ee 2 sano ah. Sanad la soo dhaafay iyo sanad loo sii socda ayaa dembigood lagu dhaafayaa. Ee wuxuu leeyahay will you fast ma soomi doontaa on the day maalinta of Arafa ee Arafa? B wuxuu leeyahay why not maxaan u soomi waayay?